Bakistan iyo Iran oo ka wada shaqeynaya ammaanka xuduudda labada dal kadib weeraro ay ciidamada labada dhinac u geysteen falaago ka dagaalantay xuduudda labada wadan. Colaadda u dhaxaysa Fahad Yaasiin iyo Ra'iisul Wasaare Roble oo weli taagan iyadoo uu Roble hakiyay kursiga Hob 86 ee uu u sharaxan yahay Fahad Yaasiin. Ciidamada Ruushka ee ku sugan xuduudda Ukraine oo dib ugu soo ruqaansanaya fadhiisimadooda. Qodobadaasi iyo warar kale ayaynu ku eegi doonaa, balse marka hore aan ku bilaabo Iran iyo Bakistan waxay wadaagaan xuduud 170 kiiloomitir oo ku taala koonfur galbeed ee Bakistan iyo koonfur bari ee Iran iyo Bakistan ayaa sameyn doona guddi wada jir ah oo ka wada shaqeeya ilaalinta iyo maamulka xuduudaha oo ay ka mid yihiin dhinacyada amniga, ganacsiga iyo arrimaha socdaalka ee labada dhinac, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Iran isagoo ka hadlayay gabagabada booqasho hal maalin ah oo uu ku tagay caasimadda Bakistan ee Islamabad Isniintii. Wasiirka arrimaha gudaha Iran Ahmed Waahidi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee ay maamusho dowladda Iran ee IRNA in labada dhinac ay sidoo kale doonayaan inay kordhiyaan ka qaybgalka xiriirka dhaqaalaha. Xiriirka Iran iyo Bakistan gaar ahaan dhaqaaluhu waa inuu noqdaa mid xoogan oo ballaadhan, ayuu yidhi Al-Waahidi. Intii uu booqashada ku guda jiray wuxuu la kulmay dhigiisa Bakistan Sheikh Rashid Ahmed, Ra'iisul Wasaaraha Bakistan Imran Khan iyo taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi General Qamar Javed Bajwa. Diblomaasiga Iran waxa uu heliyay safiirka Iran u fadhiya Bakistan Maxamed Cali Xuseini, taliyaha ilaalada xuduudaha Iran Sareeye Guute Ahmed Cali iyo u qaybsamaha ciidamada Iran Cornel Mustafa. Bakistan iyo Iran waxay wadaagaan xuduud qiyaastii 750 kiiloomitir ah oo ku taala koonfur galbeed ee Bakistan iyo koonfur bari ee Iran. Xadka ayaa waxa ka dhaca dagaalo goos-goos ah iyadoo ciidamada ilaalada xuduudaha labada dhinac la beegsaday. Sanadkii 2018 ugu yaraan 14 ka tirsan ciidamada ammaanka ee Iran oo ay ku jiraan saraakiil sirdoon oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa lagu afduubay xuduudda, taasi oo sii kordhisay xiisadda labada dal. Kooxaha hubaysan ee Jayshul Cadli ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay mas'uuliyadda afduubkaasi. 5 ka mid ah askartaasi ayaa la sii daayay isla sanadkaasi. 4 kalena waxaa soo badbaadiyay ciidamada ammaanka ee Bakistan 2019, halka 2021 Iran ay sheegtay inay soo badbaadisay 2 askari oo kale. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Bakistan, arrimaha horumarinta suuqyada iyo isfahan guud ee aragtiyaha labada dhinac iyo xaaladda Afghanistan ayaa sidoo kale laga wada hadlay. Ra'iisul Wasaaraha Bakistan Imran Khan wuxuu carabka ku adkeeyay in hore loo dhameystiro hawlgelinta suuqyada xuduudaha si kor loogu qaado dhaqaalaha dadka ku nool labada dhinac ee xadka, ayaa lagu yidhi bayaankaasi. Waxaanu intaasi ku daray in Imran Khan uu muujiyay sida uu ugu qanacsan yahay isku keenista aragtiyaha ku saabsan Afghanistan nabdoon oo xasiloon, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay isku duubnida dhow ee ka dhaxaysa labada wadan. Ra'iisul Wasaaruhu waxa kale oo uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo tallaabo degdeg ah oo beesha caalamku kaga hortagayso dhibaatooyinka bani'aadamtinimo iyo burburka dhaqaale ee Afghanistan iyo tallaabooyinka lagu xoojinayo ka qaybgalka wax ku oolka ah, xoojinta xasiloonida iyo ka hortagga argagixisada. Wadahadallada Al-Waahidi ee uu la yeeshay taliyaha ciidamada Bakistan waxay taabteen arrimo la mid ah kuwa lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga Bakistan. General Bajwa ayaa sheegay in iskaashiga labada dal ee walaalaha ah ee deriska ah ay muhiim u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka, ayaa lagu yidhi bayaankaasi. Wuxuu muujiyay baahida loo qabo in la sameeyo dadaal wada jir ah si loo diido meel kasta iyo xorriyad kasta oo ay ka faa'iideysan karaan falaagada xuduudda labada dhinac. Wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Ukraine ayaa la sheegay in qaar ka mid ah ciidamada Ruushka ee heeganka ku jira ay fadhiisimadooda dib ugu laabteen. Qaar ka mid ah ciidamada ku sugan aagga militariga Ruushka ee ku dhow xadka Ukraine ayaa dib ugu laabtay fadhiisimadooda. Tallaabadan ayaa la sheegay inay tahay mid xiisadda dejin karta. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa maanta oo Salaaso gaadhay magaalada Moscow si uu ula kulmo madaxweyne Vladimir Putin, halkaasi oo laga wado dadaalo xoogan oo lagu baajinayo dagaal ka dhacay Ukraine, isagoo oo sheegay inuu xoogga saari doono fariimaha reer galbeedka ee ah inay u furan tahay inay ka wada hadlaan arrimaha ammaanka Ruushka, laakiin ay cunaqabateyn ku soo rogi doonaan haddii ay ku soo duulaan Ukraine.
dhinaca kale qaar ka mid ah ciidamada Ruushka ee ku sugan fariimaha militariga Ruushka ee ku dhow xadka Ukraine ayaa dib ugu laabtay xeryahoogii kadib markii ay dhameysteen dhoolatuska ay halkaasi ka wadeen, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Interfax. Tallaabadan ayaa ah mid hoos u dhigi karta xurgufta u dhaxaysa Moscow iyo reer galbeedka. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu booqdo Belgium, halkaasi oo uu kula kulmi doono xulafada NATO ee Lithuania iyo Poland, maalin kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka uu muujiyay rajo diblomaasiyadeed kadib markii uu ku booriyay Putin inuu sii wado wada hadallada, iyadoo oo ay jirto diblomaasiyad heer sare ah oo lagu doonayo in lagu baajiyo dagaal ka dhaca Ukraine. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu u fidinayo dalka Ukraine deyn gaadhaysa ilaa $1 bilyan si loo caawiyo dhaqaalahooda, iyadoo quwadda ciidamada Ruushka ee soodinta waddanku ay culays ku tahay dhaqaalaha waddanka Ukraine. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay xidhayso safaaraddeedii Kiev, taasi oo loo rari doono dhammaan shaqaalaheedii ku hadhay safaaradda magaalo u dhow xadka Poland. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa ka degay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka si uu wada hadal ula yeesho madaxweyne Vladimir Putin. Ra'iisul wasaaraha ayaa markii uu soo degay diiday in laga qaado baaritaanka coronavirus ee Ruushka. Taa beddelkeedana wuxuu go'aansaday in dhakhtar ka socda safaaradda Jarmalka uu sameeyo baaritaanka oo shuruud ah ka hor inta aanu soo gelin Kremlin-ka. Saraakiisha caafimaadka ee Ruushka ayaa lagu casuumay inay goobjoog ka noqdaan baaritaanka, sida laga soo xigtay ila wareedyo ka tirsan wafdiga Jarmalka. Dhinaca wararka Soomaaliya, ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegayaa in uu dalbaday in dib loo dhigo kursiga uu doonayo inuu u tartamo Fahad Yaasiin oo hore u ahaa agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee NISA, haatana ah la taliyaha amniga ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu gudiday hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal cadaadis ku saaray sidii ay u joojin lahaayeen doorashada kursiga Hob 86, kaasi oo uu doonayay Fahad Yaasiin oo ahaa taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA, haatana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xubno ka tirsan gudida oo aan magacooga la shaacin ayaa warbaahinta qaar u sheegay in ra'iisul wasaaruhu aanu sheegin sababta uu u rabo in kursigaasi dib loogu dhigo oo uu hadda ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo mar ahaa wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya. Lama oga go'aanka ay gudidu ka qaadatay dalabka ra'iisul wasaaraha iyo in la joojin doono qabashada doorashada kursiga Hob 86. Xildhibaan Faarax ayaa hadda howlo caafimaad ugu maqan dalka dibaddiisa. Xidhiidhka ka dhexeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Fahad Yaasiin ayaa xumaatan iyo markii bishii Sebtembar ee sanadkii 2021 uu ka qaaday xilka taliyaha hay'adda awoodda badan ee NISA. Inkasta oo aanu si toos ah u sheegin, haddana Fahad ayaa la rumaysan yahay inuu rabo kursiga Hob 86 ee deegaan doorashadiisu tahay Beledweyne. Fahad Yaasiin ayaa la sheegay inuu xidhiidh wanaagsan la leeyahay madaxda maamulka Beledweyne iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu weli taagan yahay khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa 27 Disembar sanadkii 2021 ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu isku dayay afkambi lagula wareegayo awoodda xafiiskiisa, arrintaasi oo uu beeniyay xafiiska madaxweynuhu. Tan iyo markaasi ma jirin wax heshiis ah oo dhexmaray labada hogaamiye. Hase yeeshee, doorashada Soomaaliya ayaa maraysa meel xasaasi ah, iyadoo oo xubnaha cusub ee golaha shacabka ay ka mid yihiin saraakiil ciidan iyo kuwa ka tirsan hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya. Doorashada Soomaaliya ayaa si dardar ah uga socota Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle, iyadoo oo gudida maamulka doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee gobolada waqooyi uu maalmaha soo socda dooran doono 3 kursi ee ugu dambeeyay. Puntland iyo Jubbaland ayuu dhankooda gaabis ka muuqda, waxaana aan weli xal muuqda laga gaarin khilaafka hadheeyay Boosaaso iyo Garbaharey oo ah degmo doorashooyinka labaad ee ay ka dhacayso doorashada maamuladaasi.